kulanada wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta dunida ee deegal kasta. barnaamijkeena waxa ku soo gudbin doonaa Turkiga oo qabatay basaasiinta ugu badnaa ee Israa'iil oo xadayay farsamada ee hubka ee dalka Turkiga iyo basaasiintani oo dahrogay cadowtinimada ka dhanka Turkiga ee kaga socota reer galbeedka iyo macluumaad kale oo muhiim ah ayaan idin soo gudbin doonaa. Qur'aan online markaska barashada xifdiga Qur'aanka Kariimka iyo tarbiyadaynta awlaadda ee al-Iimaan Qur'aan online oo hore looga bartay aqoonta yale iyo waliba ku barbaarinta ubadka tarbiyada islaamka kaasoo sanad walba soo saara arday kala duwan oo daafaha dunida ku nool kuwaasoo aqoon xeel dheer u yeesha culumta shariicada islaamka iyo waliba xifdiga Qur'aanka Kariimka ayaa sanad dugsiyeedkani waxa uu ogeysiinaya isla markaana uu qaadanaya arday cusub oo kala joogta dalalka Canada, Mareykanka, Australia iyo Yurub iyo waliba qaaradda Afrika. haddaba waalidiinta sharafta leh waxa uu markasku ka codsanayaa in muddada isqoristu ay kooban tahay isla markaana ay ka bilaamayso bishan. Turkiga ayaa qabatay unug basaasiin oo mashaariicda tiknoolajiyada ee Turkiga u dusinayay shirkado Israa'iila xilli xeer ilaaliyaha guud ee dalka Turkiga uu dacwad ku soo oogay 11 qof oo loo haysto xog sir ah oo ku saabsan warshadaha difaaca ee Turkiga inay u gudbiyeen shirkado caalami ah. wargeyska Yeni Şafak ee dalka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday macluumaadka shakhsiyaadkani loo haysto iyo waxa ay gudbinayeen. wargeyska ayaa sheegay in warshadaha difaaca ee Turkigu ay si aad u horumareen dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay safka hore kaga jiraan ganacsiga hubka ee caalamiga ah. horumarkani Turkiga oo u ogolaan doona in Turkigu uu ka gudbo marxaladani una gudbo iibinta hubka ee dunida, balse waxay abuurtay walaac dalal badan sida Israa'iil oo aan ku qancin horumarka warshadaha difaaca ee Turkiga ay ku socdaan. wargeysku wuxuu yidhi taas darteed Turkigu wuxuu noqday bartilmaameed basaasnimo farsamada iyo ganacsiga isagoo tixraacaya qabashada unugyada basaasiinta. Turkiga waxay carabka ku adkaysay in la xidhay kooxdani baadhitaankana ay ka bilowdeen xafiiska xeer ilaaliyaha ee Ankara iyadoo loo haysto daadinta macluumaad la xidhiidha difaaca qaranka iyo mashaariicda ciidamada badda. waxaa xusid mudan in shakhsiyaadkani 11 qof ay ku jiraan saraakiil Turki ah oo xilal sare ka soo qabtay warshadaha difaaca ee Turkiga. wargeysku wuxuu ku sheegay warbixinta uu qoray in sanadihii la soo dhaafay awoodaha warshadaha difaaca ee gudaha Turkiga guulaha ay gaadheen dhinacyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku jiraan kuwa hubaysan waxay noqdeen safka hore ee wargeysyada caalamiga. warbixintani oo uu qoray Bülent Oroglo oo soo xigtay falanqayn mijiladda Foreign Policy oo ku saabsan guulaha difaaca ee Turkiga iyo horumarka awoodda Turkiga gaar ahaan diyaaradaha Bayraktar TB2 iyo Anka-S oo guul weyn ka gaadhay howlgalladii laga fuliyey Suuriya, Ciraaq iyo Liibiya. warbixinta ayaa tilmaantay in warshadaha difaaca ee Turkiga ay qarka u saaran yihiin inay ka gudbaan dunida dacaladeeda waxaana Turkigu u dhisayaa awood military oo mustaqbalka wax badan ka bedeli doonta. majaladda Foreign Policy ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa tilmaantay doorka guulaha ay ku leeyihiin diyaaradaha Turkiga weerarada ay ku qaadeen bartilmaameedyadooda. Turkigu wuxuu ka soo horjeedaa ururka shaqaalaha ee Kurdistaan wuxuuna cabsi ku faafiyey qulubta cadowgiisa. wargeyska Yeni Şafak wuxuu tixgeliyey in Turkigu uu noqday bartilmaameed basaasnimo tiknoolajiyada iyo ganacsiga iyadoo la tixraacayo qabashada unugyada basaaska ah ee halista ku ahaa mashaariicda warshadaha difaaca ee dalka. wargeyska Yeni Şafak oo soo xiganaya saraakiisha Turkiga wuxuu shaaciyey in la soo gabagabeeyey baaritaanka ay bilowday xafiiska xeer ilaalinta guud ee Ankara oo ku saabsan macluumaadkani loo haysto shakhsiyaadka iyo magacyadooda. waxaana dacwadda lagu soo daray
caddayn laga helay 11 qof oo muujinaysa in xogta basaasku ay mashaariic muhiim ah ay u gudbisay Israa'iil iyo dalal kale taa oo ku saabsan hindisooyin iyo macluumaad diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee dalka Turkiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. sirdoonka Turkiga iyo booliiska ayaa sameeyay howlgallo toddobaadyadii la soo dhaafay iyagoo burburiyay shabakado basaasiin ah. waxaa ku jira 11 qof Maxamed Damaas oo xidhiidh dhow la leh Israa'iil. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay marka laga soo tago Maxamed Damaas waxaa ku jira basaasiintani Yusuf Hakan Osbilgin oo ahaa maareeyaha mashaariicda shirkadaha warshadaha difaaca ee Turkiga 2018. warbixinta ayaa intaa ku dartay in Amra Alfa Dambas uu ka mid yahay 4 maxbuus ee kale. qoyskoodu waxay leeyihiin xiriir qoto dheer Israa'iil halka aabihiisna uu yahay Maxamed Dambas oo la xidhay wuxuuna haystaa dhalashada dalka Ingiriiska laguna yaqaano wada shaqaynta dhow ee uu la leeyahay gumaysiga Israa'iil muddo dheer. Dambas oo ah aabaha ayaa Israa'iil wakiil ugu ah Heron oo ah diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee Israa'iil. sidoo kale wuxuu wakiil uga yahay 2 shirkadood warshadaha difaaca ee Israa'iil. labada shirkadood ee Israa'iil ayaa kala ahaa warshada militariga Israa'iil ee loo soo gaabiyo IMI iyo warshada difaaca ee Aerospace Israa'iil. wargeysku wuxuu tilmaamay in Maxamed Dambas uu ka soo muuqday casriyeynta taangiga Mareykanka ee M60 halkaas oo shirkadda IMI uu wakiil uga ahaa. Dambas ayaa markii dambe waxaa loo dhiibay hawsha casriyeynta 170 taangi wuxuuna mashruucaasi ka badbaadiyey shirkadaha Israa'iil musalafnimo. warbixinta Turkiga waxay sii xaqiijisay in Maxamed Dambas oo xiriir qoto dheer la leh Israa'iil uu qayb ka ahaa walaaca la qabo in xog qarsoodi ah laga xaday warshadaha difaaca ee Turkiga uu u tagay Israa'iil sida laga helay safarkiisa. waxay tilmaantay in mas'uuliyiintu ay gacanta ku dhigeen wadar ahaan 12 milyan oo euro oo ay ku haysteen qol basaasnimo ah halka 4.5 milyan laga helay Yusuf Hakan Osbilgin. wuxuu ku dacwooday in ku dhawaad 1.5 milyan oo euro oo laga helay gurigiisa uu lahaa tuhumaha Imra Alfa Dambas. wargeyska Turkiga ayaa soo wariyay in dacwadda ka dhanka ah Osbilgin ay ku jirto wareejin macluumaad ku saabsan mashaariicda iyo hindisayaasha warshadaha difaaca ee hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaal ahayn. Turkiga ayaa tilmaantay in Osbilgin uu dusiyay xog ku saabsan mashaariicda militariga oo ay leeyihiin shirkadda Alzanzan iyo Tesis. siraha waxay ku saabsanaayeen macluumaad la xidhiidha mashaariicda helikobtarada iyo maraakiibta dagaalka. dacwad ogayaasha ayaa tilmaamay in Corneyl Muraad Ali Gormas uu ka mid yahay eedeysanayaasha oo soo noqday taliye ku-xigeenka waaxda nidaamka hawada ee waaxda farsamada ciidanka badda ee Turkiga. wuxuu isticmaalay awoodiisa si uu helo xog ku saabsan mashaariicda qarsoodiga ah ee Turkiga. Gormas wuxuu Israa'iil u gudbiyay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan helikobtarada, nidaamyada raadarada, wadamada wax ka dhisa soo saarista helikobtarada iyo meelaha ay ku sugan yihiin helikobtarada weerarka.